socdaal hal eray hawada u marnaa socdaal hadda YouTube ka tagtid oo wadaadada Soomaali oo khatarsan Ilaahay sharaftooda ha dhaafo hadii oo fiidiyaashooda aad daawatid hal video oo aan like la saarin kama soo helaysid like na waa la saaray unlike na waa la saaray soo waxa ku leeyahay dhalinyarta inta comment ku soo galaan ku aflagaadeynayaan ama hadal qaldan ka sheegayaan ama isku dayayaan in niyada ka jabiyaan markaas ha ku ahaato dhiirigelin anigoo leel balil ahna oo ku taageera wax walba soo sartina waa daawana keep going brother oo leel balil ugu muujinayo garab istaag ama ahaan oo u taageernimada ugu muujinayo waa arin aad u fiican ama qof walba fanaan walba hada soo baxayo taas u baahan midda kalena fanaanka kan boy sin ahaantiisa dhanka Instagram-ka ayuu wuxuu ugu soo qoray ama fariin ahaan ugu soo qoray in oo horumarkiisa ama noloshiisa ama dhanka fanka ku soo biiritaankiisa oo aad ugu faraxsan yahay iyo horumarka uu sameynayo wiilkaas daada yar ama fanaankaas daada yar oo hadda soo baxayo marka isagana wuxuu ka cabanayaa ama cabasho fara badan oo ka muujinaya dadka dhanka fariimaha ama dhanka commentiga ku soo dhaleeceynayo oo hadda ka sameynayo muuqaalo fara badan oo just dhanka TikTok-kiisa ay qaabkii oo muuqaalada u duubanayo ama qaabka wajigiisa u yaalay ayna intay heestiis isdul saaran ay qaabkina u jilayaan ama qaabka wajigiisa waana wax laga xumaado qof bilaadan oo nool ah in aad baalki ku tumato ama qaabku alla ka dhiga ama suuradiisa aad ku ciyaarto waana wax aad looga fiican yahay in badan marka wuxuu u muujiyay fanaanka Leel Balil ama labada fanaan waxay aad ugu muujiyeen in ay taageersan yihiin ama fankiis ay taageersan yihiin waana arin aad u fiican in laba fanaan oo dhanka social media saameyn fara badan ku leh ama dhanka raabka saameyn fara badan ku leh in ay taageernimo ku muujiyaan waa waxna aad u fiican ama qof waliba oo heli karin marka taasna waa wax saxaanta ama shakhsi ahaantiisa horseedayso in oo horumar sameeyo ama dhanka fankiisa marka dad fara badan baa waxay ku dhaleecaynayeen sida heestii dambe oo soo qaaday in ay wixiis ahaan wixiis iska yihiin fani si hadii la fiirsho qaabka oo ereyada ama laxamada qaabka heesta laxanka loo saaray ama sida qaabka loo sameynayo waa wax dhan ahaantiisa ama dhanka murtida hadii loo fiirsho oo iska fani ah laakiin mar walba waxa qurux badan qofka bilaadanka waxyaabaha oo si ahaantiisa ama shakhsi ahaantiisa oo ku faraxsan yahay ama in uu sameeyo oo ku faraxsan yahay in loo daayo marka taasna dadka Soomaalida ama Soomaali waxa lagu wada yaqaanaa wax walba markaas la xumaada ama dhankooda la xumaada in ay ku karbaashaan ama comment noqoto ama wax kale noqoto marka labada fanaan sida oo isiga aan culays fara badan u dareemin waxay u muujinayaan in ay taageersan yihiin ama ay garabkiisa ay taagan yihiin mar waliba